يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. dhibaatada argagixisada u geysatay bulshada Soomaaliyeed qaraxyada kuwooda ugu xumaa waxay ka soo bilowdaan 3 Diseembar 2009 xilligaas oo arday ka qalin jebinaysay kuwooda ugu badan kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda Banaadir iyagoo oo dhiganaya xafladooda qalin jebinta maalintaasi. dad badan oo saaxiibadood walaalahood iyo ehelkooda kamidana ay kala qayb galayeen xafladda dabaaldegga qalin bedelashadooda ayaa mar qura qarax ka dhacay halkaasi. murugada iyo warkutaalada ugu horreysay dadka Soomaaliyeed oo ay dib u xasuustaan bilowga ficilada wuxuush ee kooxaha argagixisada ayay ahayd. dadka hadda haraadiga ka ah ee mararka qaar ka sheekeeya waxa kamid ah Dr. Dufle oo kamid ah dhakhaatiirta Soomaaliyeed sidoo kalena ka tirsan aqalka sare ee dalka. waxyaalada ay geysteen qaraxaasi laguma koobi karo hadal, laakiin waxa ay la tireen waalidiin badan oo 6 sano ku soo tiiri tacabeelayay ardaydooda wax baraya. Indiya waxay ka mid ahayd wariyaasha warbaahinta qaranka. waxay ahayd hooyo Soomaaliyeed oo la daaladacaysay korinta wiilashii uga geeriyooday Allah u naxariistay Liibaan Cali Nuur oo isna ku geeriyooday qaraxyo ka dhacay maqaayadda The Village ee magaalada Muqdisho. waxay sidoo kale ka tirsaneed walaalaha u hibeeyay aqoonteeda iyo kartideeda qaranka Soomaaliya. qaraxii foosha xumaa ee hargaha iyo saamaha wuxuu galaaftay nolosha arday fara badan oo han waxbarasho lahaa xilligaas oo deeq waxbarasho ay raadinayeen. haddii aan dib ku xasuusiyo mid kamid ah culimada Soomaaliyeed ayaa xilligaasi aad ula yaabay waxa ay geysanayaan kooxaha argagixisada oo gabaad ka dhigan jiray diinta Islaamka. waa kan Sheekh Maxamed Cabdi Umal. soo ceeb weyn ma soo fadeexa ma aha waase ninkii garanayo dareemayo waa inuu gaalku muujisto inuu dadkaaga u naxayo adigana aad idaacadaha ka tiraado gaalan baabiye murtadiin baan baabiye oo ummadii ku tumato ilaahay baan idin ku dhaariyay suura noocay abay u taala masaasa jihaada mataasa gaala la dagaalana mataasa wadan xoreyn ah mataasa muxuu ahay khayr iyo wanaag iyo guul lagu doonaya abadan suura qabiixa wa haddaad qaaradaha salkooda joogto oo waxa noocaas oo kale aad ku faraxsantood jihaad u haysato inay bannaanta aad u haysato adigiyo midka galayba isku dambi baatiin ka soo amrayna idin la dambi way midka sheegtayna la dambi way waxa noocaas oo kale ah wax la tabriiriyo ama tunka la saarta ma aha dhiig muslim oo tumayaal ah oo boqolaal dhaawac oo dad gubtay ah oo dad dhuxuloobay ah oo ummad xataa indhahagu ayna qaban karaynina waxa noocaas oo kale ina tunka saaratood ku faanto aaway iimaanki aaway diinti aaway akhlaaqdi insaanka caadiga ah baan sheegan karay. dhibaatooyinka ay geystaan maleeshiyada argagixisada ee Al-Shabaab waxa kamid ah cuqaasha dadka waxgaradka oo ah bulshada. waa halka ay ka tilmaantay diinta Islaamka ee leeyahay ahlul hal wal aqd. nasiib darro cuqaal badan oo Soomaaliyeed waxa ay god ugu jiraan dhagarta kooxaha argagixisada. aqoonyahano fara badan ayaa kamid ahaa kuwii ku baxay gacanta kooxaha argagixisada. haddii aan dib ku xasuusiyo qaraxii Hotel Sham oo dadka uu galaabto waxa kamid ahaa Professor Ibrahim Cabdu, Dr. Reza Kamar, waayeel iyo dad kale oo Dr. Shahiid kamid ahaa. dhalinyarada la dilay tiro ma lahan. Muqdisho waxa ka dhacay qaraxii ugu xumaa 14 Oktoobar. waxaa la rumaysan yahay inay tahay musiibadii ugu weyneed ee Soomaaliya ka dhacday. mid kamid ah musiibooyinka ugu weyn ee adduunka ka dhacana ee qayb ka ahayd. dadka oo indhaha tiro waxa kamid ahaa ehel. waa tan maamo Soomaaliyeed oo iyadu ku weysay wadaadkeeda iyo eedadood oo dadka isaga xamaashay magaalada Muqdisho kamid ah waxna ku iibin jiray Zobe. dadkan waxaa soo gaaray qaraxan oo Zobe ka dhacay.
marka wuxuu doonay bagaash mootada soo raacina iyo qarxii iskula kulmeen daan raadinina meel walbana aadin waa soo waynay kan waxaan dhahay bakaara meeshan qudaarta aan ka soo gadayeen daan warwareysay waxaa la dhahay jaawo adeegta alaabtiisna mooto ana ula saariyo tii alaabtii mooto la saar aan la dhahay bas waxaan sariir bas waa ku jiraa ka sabarnay haddana waxaa eegagisan hooyadiisa waa yeelo haayay oo baadidaas degan arsaaqa kam degmay imaanay miya wuxuu ku keenaa hooy hatta heer waxay gaartay waxay tiri wiilkayga waa biiway ee ma dhiman ilaa hadda way amisan laadahay habeenkii sababa la seexaba ilmihii oohin bara u celiyaan buwaayo ilaa hadda ilmihii waxa la dhahay aabba maqaya ilaa hadda aabbahooda waa dhintay ilaa hadda wili ma aaminsan ilmihii والله إلهي وحن كرجينا خير في عن إنه إلهي نصيو إلهي نولش أن قدر نولك في عن إنه إلهي نوج بدله waxaani oo dhan waxa looga hortagi karo waa in la yeelaa dad iyaga u diyaarsan inay difaacaan qarannimada ummadda Soomaaliyeed marka difaacayso sharaftaada iyo cirdigaaga waxyaabaha ay diinta islaamka doortay ay ka mid yihiin qofkana inuu ku dhintaahay waa waajibaad saaran waa kaliya loo baahan yahay arrimahani cidda ka falcelin kartaa inay tahay waa in la helaa dhalinyaro dhiigooda iyo dhacaankooda u horo danaha qaranka iyagoo sidoo kale ka dhiganaya cibaado waxyaabaha diinta islaamka ay hoga tusaalaysa waxaa ka mid ah laba indhood in ilaahay uu ka dhooro naarta midna waa tan ilaahay dartii u oyda halka ta kalena ay tahay tan ilaalisa muslimiinta ee xaraasada ama waardiyaha ugu jirta waxaa la isla qarsan yahay dhammaan arrimahan ay ku dhacayaan gaabis annaga xaggeena ah laakiin waxa kaliya in la kaga baahan yahay waxay tahay inaan qaadanno waajibaadka qaranka ee saaray gaashaanla sare xasan cali nuur shuute gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad oo la hadlayay ciidamo ku sugan beledweyne mar uu booqday halkaasina howlo shaqo u tagay ayaa tusaaleynaya waxa lagaga baahan yahay askariga Soomaaliyeed howlgal aan la qaadin iyo ciidan meel fadhiya dad maqasho waxay faa'iido u tahay tuug dad jid joogo oo dadka dhacayo waxay kaloo faa'iido u tahay argagixisad waad maqlaysaan meelaha qaarkood gabar ardayd ah oo shariicada islaamka baranaysa loogu galay fasalkeedii oo lagu dilay waxaas maxaa keenaya ayagaan culays la saarin meelay joogaan wuu ku fikiraa marka wuxuu ku fikiraa inuu dhibaateeyo dadka waa meeshii ugu dambeysay macna gabar fasalkeeda dhiganayso oo jaamacad ku jirto oo waliba diinta islaamka baranaysa in inta la tagaala la dilaa waxaa keenay fadhigeena yaa keenay macna isku soo duuba dadka Soomaaliyeed waxay baahi iyo hamuun u qabaan inay helaan ciidamo iyaga difaaca sharaftooda waxyaabo badan oo damiirka Soomaalida diidi jiray ayaa hadda caadi iska noqday sababaha ugu weyn waa kalsooni cidda laga sugayeen waa idinka dhammaanteen waxaa waajibaad inaga saaran yahay ilaalinta qaranka ciidamadu waxay yihiin kuwa had iyo jeer iyaguna ka falceliya taagtooda dhacdooyinka ugu wanaagsan ee lagu xasuusto wax ka mid ah inay ka soo badbaadiyaan goobaha dhammaan ay dhibaatooyinka ka dhacaan mid ka mid ah sawirradii ugu saameynta badnaa ee baraha bulshada qabsaday weeraradii ugu dambeeyay ee Hilaac UK iyo Maka Mukarrama wadadan tirsan ka dhacay wax ka mid ahaa sawirkan shaashadeeda kaga muuqda isku soo wada duubay dadka iyo dalka inaga ayna wada sugayaan inagoo og waajibaadka diiniga ah ee na saaran inuu ina farayo inaan ilaalino masaalixda caamka ah dhibaatooyinka argagixisada geysata waxaa ka mid ah in dadka ay ku dilaan meelaha macaabida gaar ahaan masaajidada aad xasuusataan dhacdooyin gobollada bari gaar ahaan Boosaaso loogu geystay wadaad caan ah indhowto wiil dhalinyaro oo ka soo baxay masjid uu ku dukanaya qayb ka mid ah degmada Hodan ee gobolka Banaadir salaadii jimcaha kadib ayaa isna la toogtay dhammaan ficiladaasi waxay muujinayaan sida ay uga fog yihiin diinta islaamka waliba ay u adeegayaan dana kale waxaan dhiraa dad Soomaaliyeed iyo ururka iyo inta la midka ah toona inay hadda dhacdooyinkan ka tacsiyeeyaan gaar ahaan ururadan sidan oo kale ka tacsiyeeyaan waxaan filayaa tacsiib beena way aduu markaad intaad ka tacsiyeynayso boqolaabkeed disho muslina
oo masaakiin makhaayad iska fadhiya kuwa suuq iska fadhiya kuwa gaadiid iyo gawaari iska saara kuwa jidad iska maraya marka adigu na ka dhigto haddana ku faanto oo u haysata janno inaad ku gelayso kii kale laaya maxaa kaa galay adiga adba waad laynaysaa intiisi ka baaraada u geysanayay waxaan isleeyahay inay dib u xisaabtamaan bay u baahan tahay inay ka hadday run ka tahay inay muslim dhiiggii daatay ka xun yihiin kanay maalin walba qubayaan inay joojiyaan ilaan dadkii waa dhammeeyeen qaraxyadii bayna ku dhammaadeen waxaa laga yaabaa qof iyo laba dowladaan u soconno oo dagaal naga dhexeeyo dee 2 iyo 5 haddaad u socotay 200 ee kale maxaa u dishay waxaa uga jeedaa fariinta inaan iraahdo haddii ay ka tahay muslim dhiiggii inay ka danqanayaan oo dad muslima oo la dilay oo dulmi lagu laayay ka xumaanayaan dee xumaantu iyo ka danqashadu kow waxay ka bilaabataa intaadan cid kale uga gurmanin adiga dhibkaaga in laga nabad galo almuslimu man salima almuslimuuna min lisaanihi wayadihi inay noqdaan bay u baahan yihiin dhammaanteen waxaa inoo rajaynayaa inaan u shaqayno dadkeenna iyo dalkeenna innagoo ay naga tahay ikhlaas waxaan idin rajaynayaa guul iyo nabadgelyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب